bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu halkan xarunta nagaad ee bahweynta haweenka Somaliland aanu abaalmarin ku guddoonsiinay 4 gabdhood oo ka mid ah gabdhihii sanadka maxay hayday arrimaha haweenka si fiican oo hawlkarnimo ah oo hagrasho lahayn u barmood gareeyay waan u mahad celinaynaa waxaanan leenahay dadaalka halka ka sii wada horta markii ugu horeysay waxaanu sameynay inaanu tababar u sameyno dhalinyaro ka kooban 70 oo ah dhalinyarada had iyo jeer ama social media barahaas bulshada aad active ugu ah ama hablaha ka hawlgala TV-yada marka taasi waxay ahayd dadaalkii koowaad inaan horta marka hore iyaga training la siiyo hadhowna iyagu bulshada waxay u qabanayaan ay sii wadaan numberka gabdhaha activists-ka ah ee hawlaha ku hawlan way badan yihiin waxaanu doonaynaa inay iyaguna u arkaan inay dadaalkii ka mid tahay kuna daydaan hablaha iyo kuwa kale soo socdaba waxaanu rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo in doorashadan soo socota haweenka Somaliland ay qaybtooda ka heli doonaan gabdhaha dhalinyarada support-kooda siin doonaan aaba mahadsantii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aweerkan ay bixisay dalada isku xirka haweenka Somaliland ee nagaad waan rajaynayaa intan hawshan iyo hawl ka badan ba kala shaqeyn doono haweenweynaha Somaliland aan kor u qaadi doono waliba haweenka musharaxiinta fariintan u diray hablaha warbaahinta iyo waliba hablaha baraha bulshada ee beejadkooda ku xoogan yihiin iyo hablaha activist-ka ee aan media ku jira laakiin awooda kula media-ha qaybta waliba social media inay haweenka musharaxiinta garab istaagaan inay haweennimadu shaqeyso inay dumarnimo isku garab istaagaan oo aanay sugin nagaad la soo xidhiidho oo aanay sugin cid kale u yeedho waa inay isxilqaamaan oo ay wixii dumarnimo ay dumarka ugu qaban karayaan ku garab istaagaan taasaan u diray fariintaan u diray waa tahay aad baan ugu mahad celinayaa dalada haweenka ee isku xidhka nagaad aweerkayna siiyeen way ku mahadsan yihiin waajib hortana saaran buu ahaa anaga laakiin sida inoogu sii dhiirigeliyay inaanu halkaa ka sii aanba qaadno iyadoo waajib noqood haddana iyagu na abaal mariyeen waxay ka dhigan tahay in halkaa iyo meel ka sarreysa la gaadhsiiyo qof kastaana uu kusoo dhiirado inuu haweenka oo qof kastoo haweena qof kasta maaha rag ba soo geli kara laakiin qof kastoo haweeni inuu kusoo biiro haweenkana uu dhiirigeliyo horta waxa weeyaan haweenku waa dareenka bulshada maadaama dareenka bulshada in iyagaana wax doorta muhiimad waxa weeyaan in haweenku is doortaan oo ay haween badan soo saaraan waayo iyaga wax dareemo iyagaana wax karta marka la yiraahdo rag iyo dumarka labada dhinac marka leega iyaga ka dhow bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay baa mahad iskale marka hore marka xigta waxaan u mahad celinayaa mas'uuliyiinta dalada isku xidhka haweenka Somaliland ee nagaad oo inta badan iyadu ka shaqeysa arrimaha haweenka wax maanta lagu abaalmariyay oo hadiyadana lagu siiyay wax waajibkayaga ahayd oo anagu aan u arkaynay inaanay muhiim ahayn in hadiyadana lagu siiyo haddana hadday nagu dhiirigelisay nagaad aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa haweenka reer Somaliland inay si fiican uga faa'iideysan doonaan baraha bulshada anaguna waxaan rajayn doonaa inaanu si fiican uga faa'iideysan doono baraha bulshada oo aanu u isticmaali doono in laga hago dalka iyo sidoo kale haweenkaba oo wax fiican haweenka arrimahooda halkaas looga ololeeyo hablaha warbaahinta ku jira iyo hablaha baraha bulshada isticmaala waxa rajaynayaa in baraha bulshada iyo aaminaadda bulsho ee ay haystaan maadaama midiyuhu yahay meel bulshadu ka aaminayso waxa rajaynayaa in waxyaabaha haweenka khuseeya iyo caqabadaha ku xeeran in ay habluhu ay arrimahaasi dhaqdhaqaaq ka muujiyaan barahooda bulshada ay bulshada ka wacyigeliyaan waxa jira dhibaatooyin badan oo haweenka ku xeeran oo ay kamid tahay inaanay siyaasadda ka qayb gelin oo ay kamid tahay in kufsi iyo tacadiye ka dhana haweenka ay dhacaan ay kamid tahay inay jiraan caadooyin bulshadeena caadi ka dhex ah laakiinse haweenka caqabad ku gudniinka fircooniga uu kamid yahay marka waxyaabahaas oo dhan waxaan rajaynayaa in social media hablaha isticmaala ay noqon doonaan platform ay wax ka bedelaan isla markaasina ay bulshada ka wacyigeliyaan magacaygu waa Muna Faarax Miigane kana tirsan dhalinyarada Somaliland ee sida weyn ugu ololeysa baraha bulshada xagga haweenka aad waxaan ugu mahad celinayaa aweerkan ee nasiisay dalada isku xidhka haweenka ee nagaad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aad baad mahadsantihiin runtii may ahayn wax la nagu abaal mariyo wuxuu ahaa waajibkayaga naga saaran haweenweynaha Somaliland sidoo kale anagu haweenka ma lihin wax diinta ka baxsan qabta laakiin waxaanu leenahay wax diinteena ku saleysan inagana muhiim inoo ah bulshadeena muhiim oo inaad qabataan waa wax mar walba waajibkeena ah waana waajib saaran ummad kasta oo muslima haween kasta oo muslimana waxa saaran inay diinta iyo dalka iyo dadka hadba inta ay ku dhexnooshahay ay runtii u dadaasho halkaana waxaan rajaynaynaa inaanu ka sii kordhino runtii fariinta maanta aan jecelahay inaan u diro hablaha qayrkayga ama dhigayga
ama warbaahinha ka shaqeeyaan ama baraha bulshada sidooda kale ha u ahaadaan dad activism oo inta badan u ololeeya xuquuqda aadanaha ama ha noqoto haweenka ama yay noqon laakiin waxa aan si gaar ah ula hadlayaa hablaha reer Somaliland oo aan mar kasta leeyahay runtii waa la idinku caburin doonaa ama dad baa idin dhaleecayn doona oo wax idinka sheegi doona laakiin taasi yaani noqonin wax idinka hor istaagay in aad horumarisaan hadba bulshooyinka Somaliland khaasatan haweenka in ay dadaalkooga muujiyaan runtii dumarku waa wax aad u dadaal badan ama guriga ha joogan ama dibadda ha joogan waxaan aaminsanahay in 90% ragga ka hawlkarsan yihiin marka waxaan jecelahay habluhu inaanay saakran ay hawshooda ama dadaalkooga mar walba soo saaraan oo ay qabtaan wixii bulshadu ay dhexdeeda oo ay uga baahnayd maadaama ay yihiin haweenku laf dhabarta wax bedesha ama wax qabata ama imiga markaynu doorasho galayna ama xildhibaan ha ahaada ama yuu noqon ama madaxweynaha aad cidda codaysa wax weeyaan waa haweenka marka haweenka waxaan jecelahay waliba habluhu in ay u istaagaan in hooyooyinka u sharaxan maanta in ay noqdaan musharaxiin in ay soo saaraan codkooga ay ku taageeraan baan aad iyo aad ugu boorinayaa hablaha